asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa ka hadlaynaa sida ugu fiican ee quruxda loo ilaaliyo. Quruxdu waa nimcad qaali ah oo Ilaahay siiyey dadka. Nimcadaasi waxay u baahan tahay in la ilaaliyo. Haddaba maahan quruxda sida loo maleynayo sida maanta dadka lunsan ay u fahansan yihiin. Zamankan waxaad arkaysaa qof wata dhar jeexjeexan, waxaa lagu leeyahay waa casri oo waa horumar. Taasi waxay ku tusinaysaa dad badan inaysan fahan dhab ah ka haysan waxa ay tahay quruxda. Ugu horreyn, quruxdu maahan midab gaar ah, mana jiro wax la dhihi karo quruxdu waa noocan. Qof qiixi kara waxa ay tahay quruxduna ma jiro, taasina waa xaqiiq. Adduunka ma jiro qof qurux badan ama qof fool xun, qof walba wuxuu yahay wixii aad ka aaminto. Ku darso qaamuuskaaga kelmaddan. Quruxdu maahan shayga muujinaya shakhsiyadaada ee waa afkaarta iyo aragtida uu ka aamini karo shakhsiga. Aaminaadda ah fikradaha dadka ma muujinayso shakhsiyadaada. Dadka badankoodu waxay sheegtaan qurux aynan lahayn, laakiin haddii aad gabar u sheekeynayso waad ku qasban tahay inaad tidhaahdo waad qurux badan tahay, maxaa yeelay taasi sanka ayaad uga tolan tahay. Haddaba quruxdu waa maxay? Quruxdu waa qaabka fidriga ah oo Allah u abuuray aadanaha. Quruxdu waxay ka kooban tahay maadi iyo macne, maahan keliya qaabka ama bidhaanta quruxda. Qalbiga quruxda, hadalka quruxda, dhaqanka quruxda, nadaafadda quruxda, toosnaanta, waxaasoo dhan waa qurux. Haddii ay tahay gabadha mid qurux badan oo haddana ay la'dahay akhlaaqda, caqliga, qalbiga wanaagsan, miyaa lagu tilmaami karaa qurux? Runtii qof kasta oo waxgarad ahna wuu dareemi karaa quruxda inaysan ahayn mid yar ama fudud. Mana aha sida maanta dhammaan reer galbeedku u fasireen quruxda oo ay dad badan u raaceen. Quruxda haddaan fahanay, waxaa rabnaa inaan fahanno sida loo ilaaliyo quruxda. Waxaa lagu ilaaliyaa in la fahmo jidka toosan, akhlaaqda wanaagsan, nadaafadda, suubanaanta. Qofka waxyaabahan ka taga oo ka leexda waddada toosan lama dhihi karo qurux buu leeyahay, waayo jidka uu maray ayaa jid qalloocsan ah. Tusaale ahaan, waxaad arkaysaa gabar ama wiil oo surwaal jeenis si xun u jeexjeexan xiran, waxauna u haystaa inuu horumar gaaray. Marka quruxdu maahan dadka waxa ay ku qeexaan rabitaankooda ama hawadooda, ee waa wax ku sugan oo la ogyahay. Qof kasta waxa uu raadinayaa wax qurux badan. Qof guur u baahan waxa uu doonayaa gabar qurux badan, laakiin aragtida dadka way kala duwan yihiin. Haddii aad rabto inaad ogaato quruxda saxda ah, waa inaad u noqoto diinta xaqa ah ee Islaamka. Siday u aragto middaas ayaa sax ah. Sidoo kale diinta Islaamka waxay kuu sheegtay sida quruxdaasi loo ilaalinayo oo loo xafidayo. Waa in aad ka fogaataa wixii lagaa reebay adiga oo sameynaya wixii lagu faray. Intii aan ku guda jiray baaridda barnaamijkan, waxaa la kulmay qoraal yar oo kooban oo ah qoraal aad u jacdaro badan. Dabcan Soomaalideena waa taqaanaan, waa kuwo inta badan ka sameeya waxyaabaha bulshadu ay ku badan yihiin, comedy ama qosol. Mawduuca hadda ka hadlayna quruxda, waxaa ku tegay muuqaal ama qoraal yar oo aad u qosol badan oo ku saabsan mawduucan ka hadlayno. Wuxuu leeyahay qoraalka: waa salaamantii dhammaan marwooyinka iyo mudanayaal. Su'aal: waa maxay qurux? Waxaan wax badan maqlayay gabar laga dambeeyo quruxdeeda darteed. Markaan wax badan raadinayay ayaa muddo kadib la kulmay, mise waaba qof gafuurka ka soo horeeyo oo caato ah oo aad moodid inuu AIDS ku dhacay. Waa dabcan Soomaalidu waa kuwo inta badan isku dayaya waxyaabaha ha ahaadaan wax laga xishoodo iyo waxaan laga xishooninba. Inta badan waa kuwo ka sameynaya comedy ama madadays, waana dabcan Soomaalidu aad ay u dhib badan yihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena. Ugu horreyn, quruxda lagu sheegayo waa qalbiga. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo sheegay in maalinta qiyaamo qofka bini'aadanka ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu abaalmari doono, oo qof waliba oo maalinta qiyaamo soo istaagan laga xisaabi doono waa qalbiga. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay: laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata Allaha biqalbi saliim. oo macnaheedu yahay wax ma tarayaan awlaad iyo lacag, waxba ma tarayso, kaliya waxa wax taraya waa qalbiga nadiifka ah. Sidaa daraaddeed marka Allah subxaanahu wa tacaala inaan mar walba ku xirnaano isaga ayaa ah rabbigeena. haddana mar walba quruxdu waxay ku sii siyaadaa qalbiga. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xubinka ka mid ah jirka bini'aadanka ayaa jirta. Xubintaasi haddii ay wanaagsanaato ama ay caafimaad qabto, dhammaan jirka wuu hagaagayaa. xubintaasina waa qalbiga. Allah subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha adoomadiisa wuxuu ka fiiri doono waa qalbiga. sidoo Allah subxaanahu wa tacaala ku leeyahay: laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata Allaha biqalbi saliim.
barnaamijka intaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.